munaasabadan oo Muqdisho ka dhacday ayaa lagu caleema saaray madaxweynaha maamul ee yeesheen dadka ku nool deegaano hoostaga gobolada Jubbooyinka oo dhawaan isu imaatin ay maamulku doorteen ku yeeshay Muqdisho waxaana loogu caleema saaray xilkaasi Axmed Sheekh Aadam Dheere waxaana ka qayb galay odayaal waxgarad iyo siyaasiyiin ka qayb galayaasha ayaa hadaladan munaasabada ka jeediyay waxaan rabnaa marka in shacabka gobolada Jubbooyinka gacmuhu isqabsadaan shalay haddii la marin habaabiyay maanta cadaalad way arkaan cadaalad la tuso marka waxaan leenahay maamulkan waa in la gacan siiyo dadka ka dhashay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo deegaankaas degan dhamaantood inay gacan siiyaan maamulkan ay ku tala galaan maamulka kaliya oo jira inuu asaga yahay cadaalad lagu dhow dadka xaquuqdiisa la duudsiyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu xaqooda soo celiyo goboladka marka waa state waxaan kula dardaarmaynaa inay dadka deegaanada aruuriyaan dhismahooda inuu u ekaado mid wax soo celin kara oo nabad soo celin kara oo mustaqbalka dhow iyo madka dheer labadaba dadkaas xuquuqdooda lagu keeni karo hogaamiyaha la caleema saaray Axmed Sheekh Aadam Dheere ayaa dhinaciisa ka qayb galayaasha uu sheegay in badan baa waxa la dhihi doonaa maamul baa dhisan maamulka dhisan maxaa lagu diidaya waxaa jirta dalka Falastiin waad maqasheen Falastiin dad kamida ayaa waxay kamid yihiin xildhibaanada baarlamaanka Yuhuudda ku jiraan wasiirro Falastiin ah ku jira baarlamaanka Yuhuudda maxay ka qaban karaan xildhibaanada Falastiiniinta ee baarlamaanka Yuhuudda ku jira maxay ka qaban karaan qadiyadda reer Falastiin aan is weydiinay waxba waxaan idinku bishaareynaya waama isteed inay dhaqaaqday oo ay joogto meel maanta ay la xisaabtami karto Axmed Madoobe oo miiska isla hor fariisanayna weega dambe insha Allah taala haduu Ilaahay yiraahdo waxa Ilaahay maxmuud Cabdinaasir Maxamed Ali Hon Cable TV magaalada Muqdisho.